السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فيصل محمد waxaan jeclahay halkan inaan kula wadaago muwaadiniinta reer Jubbaland fariin aan ugu talagalay inay gaarto muwaadinka. Ujeedada ayaa isu soo bax nabadeed. Muwaadin sida aan wada ognahay Jubbaland waxay martay laba xilli doorasho kuwaas oo kala 2015 iyo 2019. labadii doorashadii 2019kii waxaa hareeyay fadaxooyin waaweyn kuwaas oo ragaadiyay nidaamka dawladnimo muddo 2 sano ku dhow. hadda ayaa loo kalan yahay xilligii saddexaad ee aan doonayno inay inoo dhacdo doorasho ku dhacda si nabad ah oo lagu wada qayb qaato. inta badan waxaan xiriirnaa sharciga iyo dastuurka Jubbaland. halkan waxaa ku cad xigashada muwaadinka aan ugu baaqayno inuu ka qayb qaato isu soo baxas nabadeed sida uu qabo dastuurka Jubbaland cutubkiisa labaad ee xuquuqaha iyo xorriyadka asaasiga ah ee muwaadinka. qodobkiisa 15aad ayaa u dhigan sidan: xorriyadda kulanka banaanbaxa cabashada iyo codsi wadareedka. farqadiisa koowaad qodobka 15aad ee cutubka labaad ayaa u dhigan sidan soo socota: qof kasta oo reer Jubbaland waxa uu xor u yahay inuu abaabulo ka qayb qaato banaanbaxyo ku salaysan hab nabadgelyo si sharciga waafaqsan. kasokow islaamnimada iyo Soomaalinimada shacabka Jubbaland waxaa mideeyay dastuurka ay dhigteen kaasoo la ansixiyay August 2015. sidaas darteed muwaadin waxaan ka codsanaynaa inagoo wada dhaqan gelinayna xaqeena dastuuriga in aynu wada abaabulno isu soo bax nabadeed kaasoo aynu ku muujinayno dareenkeena in aysan macquul ahayn in la ku hogaamiyo wada ka baxsan xayndaabka sharciga baaqa muwaadinka. sida aan wada ognahay muwaadin waxaa hoos loo dhigay maqaamkii iyo sharafkii uu lahaa isimkaagu kaasoo aan lagu ixtiraamin xulida rasmiga ee ciidda kugu matalaysa baarlamaanka Jubbaland. waxaana la macno tiray matalaadii maadaama qofka ku matala uusan ku iman rabitaankaaga iyo madax banaanida isimkaaga ama nabadoonkaaga. waxa aad marxaanti u ahayd matalaad xumadii kugu haleeshay golayaasha sharci dejinta iyo fulinta Jubbaland labadaas xilli doorasho. haddaba si aan uga gaashaamano arintaas muwaadin nala xooji xaqeena dastuuriga iyo xorriyadkeena asaasiga oo muwaadin nagala qayb qaado isu soo bax nabadeed kaasoo dareenkeena aan ku muujinayno si waafaqsan sharciga. ogeysiin waxa la ogeysiinayaa taliska biliiska Jubbaland gaar ahaan qaybta gobolka Jubbada Hoose ee degmada Kismaayo. waxaana rajaynaynaa inuu nagala shaqeeyo sugidda amniga goobta ay ka dhacayo isu soo baxo iyo muwaadiniinta muujinaya dareenkooda maadaama la tacaamulka shacabka uu isagu u xil saaran yahay marka ay timaado cabasho dadweyne oo u dhacaysa si silmi waafaqsan sharciga. waxaa inoo ballan in aynu wada ilaalino sharciga iyo jiritaanka qiyamka bulshada reer Jubbaland. goobtu waa magaalada Kismaayo xaafadda Farjano waaxda Olympic. taariikhda iyo goortuba waxa ay noqonayaan 10 August 2024 10 iyo bar barqanimo. waad mahadsantihiin.